waxaan halkan ka yar sheegayaa gudoomiyaha degmadu wuxuu soo amaahday lacag deyna lacagta deynta kabkayagii buu ku soo amaahday waxa weeyaan sida sharcigu dhigayana sharci xeer number 23 qodobkiisa 19 goluhu ma soo amaahan karo hadda gudoomiyuhu ma ahayn waa golaha deegaanku ma soo amaahan karo deyn aan miisaaniyada ku jirin deyntaasi sabab loo soo amaahday ma garanayno golo ogi ma jiro guddi joogto oo ogi ma jirto guddi fulineed oo la ogeyd ma jirto lacagta gudoomiyuhu qura la soo siiyay annagu maanta waxaan u haysanaa lacagtaasi deeq la soo siiyay gudoomiyaha degmada waxaan halkan baaq uga dirayaa bangiga dhexe Soomaaliland mas'uuliyintooda sababta ay gudoomiyaha lacagta u soo siiyeen lacagta la soo amaahday waa $300,000 lacagtaasi ma hayno waliba inay soo wada gaadhay degmada iyo in kale ma hayno $400,000 weeyaan wali maynaan ma hayno inay degmada soo wada gaadhay lacagta badideedaba dusha lagu goostay waa lacag gudoomiyuhu qori soo siiyay guddiga fulinta degmadu lama oga lacagtaasi amaahdeeda waxaan ka doonaynaa banka dhexe bal cid lacagtan ka dalbatay in amaahiya tiri cid ay hayd hadayna gudoomiyuhu ku soo deeqin guddi fulineed lama socon lacagta warqadaasi ku soo amaahday guddi joogtii kuma jirto gole ma oga saddexdaasiba ma oga waa sharci darro cad waa nin lacag la iska soo siiyay anagu aragnaa gudoomiyaha banka iyo agaasimaha banka ka jawaabay arrinkaasi degmadu maxkamad bana anagu la tiigsanayna bangiga dhexe Soomaaliland maxkamadda saraana ka furanaynaa inaan la dacwino banka dhexe waayo lacagtaasi sabab lagu soo qaaday ma garanayno ilaa imika gudoomiyaha iyagu wali ma soo bandhigin oo lacag baan soo amaahdinay ma oran kol haduuna noo oranayno guddigii fulintu ayna la ogeyn anagu lacagta waxaan u aragnaa kabka iyaga naga maqan sanadka 2020 lacagtii baa la sii amaahday sharci darrada kale jirta miisaaniyada aan gaadhin oo 2020 ayaa lacagteedii loogu soo daray 2019 waa la soo qaatay bishii lixaad baa la soo qaatay meel ay kaga qoran tahay ma jirto waxa sanadka miisaaniyada aan ku jirnay miisaaniyada 2020 lacagta la soo qaatay dawaatii doorashada dhacaysay ee aan nabadelayay anaga bishii 12 war hadaba ciidan la soo amaahiyay baan soo amaahisay waan garan laanahay sababta ay ku soo siiyeen waxaan kaloon halkan uga sheegayaa bulshada reer Boorama bulshadii way cabanaysaa oo wada ogtiin wadooyinkii GBLG-ga aanu qorsheynay meelihii aanu qorsheynay waa laga bedelay xaafadii Sheekh Cali imika way ka cabanaysaa xaafadii hayayaaba way cabanaysaa xaafadii bariga maxay ahaydeen qoorgaabi way cabanaysaa saddexdaaba waxaan u astaynay saddex jid oo maxay ahaydeen ugu jiray GBLG-ga jid wuxuu marayay buurta hoosteeda maxay ahaydeen buurta biyaha ila dareemacaan u soconayay jidkaasi waa la soo bedelo magaalada dhexdeedu keenay soo aliyo soo uu ka keenay waan garan laanahay hayayaaba jidku meel baan u astaynay uu marayay meeshii uu ka wixisha la yiri ya jidka laamiga maxay ahayd saaweere si soconaya ilaa bahalkii isna waan u astaynay la qoorgaab tagaya kaawuba laalay gidigiisaba haddaba waxaan leenahay imika cibaaro kalaaba soo baxdo gudoomiyaha degmadu uu ku shaqeynaya waxa la yiri jidadku bay iibsadaayo dadka guryaha uu hormarinayo lacag ka qaada waa sababta imika aan garan laanahay ilaa imika waxa weeyaan jidkii baa la iibsanayaaba waxaan leeyahay gudoomiyaha degmadu waad ogtiino jidadkii oo dhan way xidhan yihiin halkan khayriyadii waa guriga ka iibshay jidkii halka marayay uu yareeyay jidkan hoos u dhaadhacay maxay ahayd sisibta maro uu yareeyo wadiga arkay jidadkii magaalada oo dhasaas u wada yareynaya war hadaba waxaan leenahay bulshada inta wanaaga jecel degmadii halkaas ay maraysa in maalin dhow waxa weeyaan waxaan ka baqaynaaba bulshadu inta damiir kale waxaan u sheegaynaa inay sidan xaaladda ay ku jirto xaalad ka bedelan ay arkaan dadweynaha waxaan leenahay
maanta inaad nala wadaagtaan baan doonaynaa xaaladda degmadu halkay marayso wataa la sheegayo lacag waxa maqan milyan iyo saayid oo dollar ya war waa cashuurtiinii waa cashuurtii laga qaaday dadkiina nin walba cashuur baa laga qaadaa bal haddaba waxaan leenahay degmada ha loo gurmado